وصهر مرة وحب بدن هذا ويدين دور السؤال وبدن نحل قاضي قاضي ليره سؤال وسنة ترسجين سجوا على تمركم أدي أبو فرحسن هاي أنا يو حكيدي نذير نيوز إن هال سنة وشعيل كنا سونجري أدي أبو فرحسن هاي منانتك وده حسينيا ورهل كنا وكل سنة هاي نذير محمد عقي نذير نيوز sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dhammaan inta ka soo qayb gashay xafladdan quruxda badan leh iyo lamaanaha qarniga dayax dalnooshe iyo farxiyo aad iyo aad mahadsantihiin allah ha idin shafo sidoo kale waxaa ilooway igaraali noqda maamul umar fa'aad oo ka dambeysay barnaamijkan quruxda badan la arkaysaan iyo dharkan quruxda badan la arkaysaan oo inoo suurtagelisay allah sharfo يعني نذيرة سينا نذيرة ضد كان سوق بدها حفلة دينا أو سنة كي أو ما هنعلي كوتالا مر هذه الدردان مور بدن إنه يقدم بالسوق ويرتاح ما هنعلي تنا السوق بسم الله هرتو أولا حنا مهد علينا يا إلهي وأسكتكم يعني قوتنا قرب بدن مركل بعدنا حنا مهد علينا يا حاجتي جوي سورتي قلينا إن بدن فرحة marka saddexaad waxaan mahad celinayaa martidayda khaaska oo ka mid yahay walaalkayga dalnooshe iyo walaashay farxiya oo aad u jeclahay iyo walaalkay yacqoob aad baan u salaamayaa intii kalena aad baan idin salaamayaa marka ugu horeyso marka labaadna aad baan ugu faraxsanahay inaan saddex jirsado salama dhihi aad baan ugu faraxsanahay waxaan rajaynayaa sanado badan oo kan ka badan inaan wada noolaano sidoo kale waxaan mahad celinayaa maamul fu'aad oo ayagana quruxdeeda qayb ka qaadatay kama maqna kameramaanada aad baan ugu mahad celinayaa walaalkay ismaaciil xaaji cabdalana aad baan ugu mahad celinayaa oo halkaas isoo eegay dhammaantiin aad baad u salaamantiin joogaa kaadheeri marka ugu horeysa magaalada muqdisho oo sanad guura aad ka qayb galaysid oo artilaya sidaa u aragtaa go-a ugu jirsaday xafladda guurkan aanu ugu dabaaldegeen oo sanad أولاً waxaan leeyahay dhalinyarada quruxda badan si qurux badan baa idin salaamaya maasha Allah joogu quruxsan yahay markaan soo noqdo sanad guuro kaliya ma waa sanad guuro nool ayadoo nool waayo mar hadday meesha u wada joogaan waa sanad guuro nool warka waxaan leeyahay alla ilaah wax lagu dadaatihiin sidoo kale walaalkii iga weyn okay waayahay sidoo kale intaan arkayay xaqiiq asxaab ama saaxiib aan leeyahay ama aan leeyahay macnaha isku mowqif nahay intaan arkayay waa dadka ugu macquulsan aan leeyahay xataa nafteyda inay ku dayato hadda garabkayga midig waxa ah عايدي يضيع لبضبا وعاشر بيو إلهي دب كذا وحنا يا ما شاء الله إلا إذا كل إذا ما قارينين واسكت لنا إن يربى اسكت لنا إنا إذا مثلنا هذه لكن وحنا لا وحنا شيء كل بملك بالآذان دعاء الحاوية إلهي السبحانه إلهي حكده هو مركي جوابان aan ku hormaray aydida idiro teekay ka dhamaadeen dhahdo aydido toobta isoo qabo agari sidoo kale dayaxna waxaan leeyahay ilaahay ha ku gaarsiiyo adoo boqor degtay laba dhaha faatixiyo boqor aad iyo aad marka waxaan leeyahay waxaan dhihi karaa ilaahay isku kinday isku waara waa hadal laakiin ilaahay isku kinday in badan ilaahay isku kindayo waana ku faraxsanahay sanad guuradiina nool sanad guuro waa iska dhigtaa laakiin sanad guuro nool baan dhihi karaa in badan kuna goojada asxaabta adinkana waa salaamaya inta halkaas waxaan ka arkaa saaxiibkaan jeclahay يعقوب
aad ugu salaamaya saaxiibkaani وما سنت عن مجال السير بدنا قوت سجن ويعقوب كم يجي يصير ويل كلا إسناء أركاي لما أنت تقولش ده دون تا وقت جودنا ويقعدون دون عندي دي كانوا على قعدون دون تا وقت بس مركز سؤال عن ودينا يا ده يحضن ورشة وعالين إن بدل جلوس وجوجي واحد بدل نكو فنانين أنت بدل إسكور سدان خاركونا ويكمتكان لكن عرفت أهان عيديد يو إيشك نديره ويسند جرسدين haddana ilaahay wuxuu ku bilaabay gabar oo kamid ah hadiyadaha rabbi uu bixiyo nasiiba loogu magac daray kulay inay nasiib tahan oo jeedaa sida uu aragtaa adi ahaan leeyahay maxaa si kaaga soo kordhay guurka fanaaniinta aragtaa والله horta waa idin salaamaya dhammaan kasoo qaybgalayaasha quruxda badan gabdhaha iyo wiilasha dhalinyarada ah ee lagu soo casuumay xafladda walaashay Nadiira iyo seediga Ciidid aniga Nadiira ay la dhalatay intaan Ciidid aniga iyada ay keentay marka waa seediga Ciidid kamermaanada qiimaha badan halkan jooga majaajilistayaasha fanaaniinta sharafta badan walaashay Xamdi sidoo kale idan waa salaamaya runaantii waxa marka aan ka hadlo Ciidid waxaan salaamay waxaan iloobay eedaday Fuaad oo quruxda halkan ka muuqata ayadana noo soo gelisay oo ma hadina sidoo kale ayadana runaantii walaalka Ciidid iyo walaashay Nadiira waa qoys wanaagsan oo marka ay isku imaadeen laga gartay wanaagga iyo sharafta iyo qoysnimada ka dhaxayso labada qof markay isku yimaadaan muhiimada ugu weyn labada qof xalqaala waxay tahay in noloshooda labada qof ayagu wax iska bedeli karaan oo marka waxaan ogahay Nadiira iyo Ciidid yihiin dad ismaqla dad kala dambeeya dad wax isku sheega dad waaya aragnimo maxaa la ii sheeg iyo walaalnimo ku wada jooga markii xaggaas laga soo gudbanayo waa qoyskii ugu horeeyay horta oo markii fanaaniin laga hadlo oo aniga dayax ah aan u martiyo oo aan gurigooda tago oo aan wax ku cuno oo wax ku cabo oo aan shaqo ku qabtay waa qoyskii ugu horeeyay oo fanaaniina waa Nadiira iyo Ciidid marka inta aan ka arkayna waa ugu filan tahay gabadhooda nasiibna waxaa leeyahay Ilaahay ha idin koriyo idinkana waxaa leeyahay nolosha dhan oo lagu sheegayo muhiimada ugu weyn ee laga leeyahay waxaa waaye waa in muhiimada ugu weyn ee lagu wada joogo waxaa waaye sabar laba qof oo aanan isdagaalin adduunka oo isqabto ma jirto marka lagu leeyahay labada qof waa wada joogaan intaas oo sano wada joogaan isma dagaalaan isma yareeyaan marka lagu leeyahay labada qof ee aan dagaalkooda social media laga dhex arkin ee isqaba waa labada qof ee ugu sharafta badan markii qoys laga arko marka laakiin dagaal markii la dhaho hooyada iyo aabaha waa isdagaaleen markay isqabeen markii qoys ahaan laga hadlo waa la isdagaalaa maanta oo dhan waa isku dhigiin qoys aan isdagaalsanin dagaalka markii lagu hadlana wuxuu ka mid yahay macaanta nolosha maanta oo dhan labada qof markay isku dhigiin qofka kaleeto waxbuu kaga dhigayo rabaa inuu kasoo qaro marka laakiin markii laga hadlo dhanka kale ee publica waa dad dhowrsan oo aan dagaalkooda buuqooda maxaa la ii sheeg hadalkooda oo qiimo daran waxyaaba ay dad private noloshooda ku dhisantaa muhiimada waa private publicana waa in la tusaa wanaagga iyo sharafta laakiin in sabarka iyo maxaa la ii sheeg muhiimada ugu weyn ee nolosha tiirkeeda ee waxaa waaye labada qof inay wax walba kala tanaasuli karaan inay sabar ku wada noolaan karaan marka Nadiira iyo Ciidid waxaan leeyahay wada jira oo nabadgala Ilaahayna xafido Ilaahay ka dhigo kuwii wax badan wada noolaado marka qoyska hadduu caruur soo dhex gasho Ilaahay labada qof oo caruur kala siiyo waa inta ugu badan waa dadka isku sabra maxaa yeelay caruurtaasi marba haddii dadka caruurtooda jecel yihiin maxaa yeelay gabadha haddii gabadheeda jeceshahay ma awoodinay ninkeeda ka tagto maxaa yeelay waxay ku tanaasulaysaa oo u samaysaa gabadhaada aabba la'aan xitaa haddii adiga aad korsan karta aabba la'aan inay ku kortay inay aabbo kula joogo waxaa ku fiican oo aabbo kula joogo oo lagula koriyo akhlaaqdeeda iyo wanaaggeeda si berrito aa u noqoto hooyo sharaf badan gabadhaadaasna ay berrito kugu dayarto adiga iyo reerkeeda sidaan oo kale noqoto marka waxaan leeyahay isku waana waa ku faraxsanahay tan kale waxaan u soo qaaday waa hadiyad ah oo aan u diyaariyay hees aan labadooda ugu talagalay marka intaas laga hadlana waa fanaaniintii ugu horeeyay aan weligay hees u qaado Nadiira Ciidid marka waxaa leeyahay qoyska ku faraxsanahay oo walaal iyo saaxiib aan ahay waaye Ilaahay idin shafo سنة
ما شاء الله طبعا مرت الشركة اللي كسوق بشوية سلام سلام كتب ولا شيء نذير ولا كعيدي كحالها سلك بروعة كويس كوار اسبوع إلى أن يقيم عندي والسلامة ماذا سالفة لو جوجو سنقول بس لو جوجو نيجي كده بيا حريص عبد وايو مركز سكان سنة إيه إنت إسبوعنا نيجي هو إيه هم بني ميركو شيئا لو my best friend عيدي وصاحبي نذير وصاحبي مركا ومفرح سنة عاود حلو إننا كسوق غير قلو مركا بلد وغيرها إن لمان الله إيمان مركا وافرح مركي وسكاب الوارد مركا أسرع حفظها خطوطنا حمد كثير وسكاب الوارد مركا ما تنال الجدال ومفرح سنة هاي ليبدو وحياة قرب بلد ولا شيء اللي فرح سنة waxyaabaha social media aad arkaysaan oo tobanka daqiiqo kaamilad loo fadhiyo jilin waay nolosha dhabta ah private marka saas inay u ogaataan dad badan waxaa jira oo role model fanaaniinta u yihiin oo youtuberada role model u yihiin waxaa waaye waxaa loo baahan yahay in nolosha lagu farxo la qaato sidoo kale waxaa kaa salaamayaa cabdiaskari ustaadkayga waxaa waaye ninka ugu horeeya ee youtube ugu dhiirigeliya xaqiiq marka laga hadlo أنا لو حنا نشوف يوتيوب ليها لكن كبر كثير دليل كامل وقلوبه إن يوتيوب سبعين عبسكري وها كلينا والسلامة وتشوف اللي كيجوا حاول رجل يوتيوب والله كذا مركب عليه إن شاء الله تعالى وضري ملك السعودة وأحيانا أيضا أنت فرد الصوت حتى لك سبسكرايب وقولي صارنا حتى هذا صار ملك وأحيانا كلمة أنت كسوق بس أبوهنا حتى هذا سبسكرايب ومسدين